waa banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ka dhacay qayb ka mid ah Muqdisho. banaanbaxyada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxa soo abaabulay xubno ka kala socda maamulka gobolka Banaadir iyo xoogagga wadaniyiinta waxa uuna ka dhacay qayb ka mid ah caasimadda sida isgoosyada Sanca kiiloomitir 4 iyo taalada Daljirka Dahsoon oo banaanbaxa uu xoogiisa ka dhacay. dadka banaanbaxa dhigayay oo laga soo aruuriyay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa watay boorar lagu soo xardhay sawirada madaxweynaha iyo hadallo ay ku taageerayaan madaxweynaha iyo dawladdiisa. ujeedka banaanbaxyadan ayaa ah kuwa lagu taageerayo codsigii uu shalay madaxweyne Farmaajo ka horjeediyay labada aqal ee baarlamaanka ee ahaa in gobolka Banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare. waxa waaye shalay madaxweynaha warka ka soo baxay maqaamka Muqdisho ayaa u soo baxnay todoba ayaa la siiyay waxa jeclaynahay unka todoba ka badan in la siiyo todoba aadan weeraa 3 milyan todoba qofood maxaa ku tiraysaa kaas ayaa wajaa madaxweynaha warkiisna war fiican ahay dhinaca ciidanka diira waa tay ciidanka hadii la yiraahdo magaas nabadgelyo hadda maanta ciidan muujadimaan ya ciidan muujadin إيكا أونكا عيد كنا أونكا وحول بخبزونا بوندر وهكذا ميل هدق يا قمتال كاس يا كوشا وهكذا كوشا مدحوينا هذا الكهدلاي هذا الكيس بدأ وح أورمي ورسول سوريا وحدا واجرا أو إسكيلو واجرا لكن بدأ هن وح أو سمية وما عرضك على إله سوانوني حكى الله بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka mid ahay haweenka gobolka Banaadir waxaan ku hadlayaa codka shacabka gobolka Banaadir shucuurteena maanta lama soo koobi karo lama qiyaasi karo waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay hadalkii madaxweynaha ee ahaa maqaamka Muqdisho waa madaxweyne ugu horeeya ka hadla madaxweyne waxaan leenahay guuleyso garabkaaga taaganahay awada waxaad madaxweynaha shacabka ayaa ku doortay haddana waan ku taageersanahay waan ku faraxsanahay in reer Muqdisho xaquuq yeeshaan in badan baan sugaynay gobolada waxaa lagu dhisay Muqdisho حقدي ولا ما أنت إلى دستة مقام كده شو تكون له حقوق كلام مدحوينه إن ذلك الصومالي هذا الكي وعيقلنتي وبحية إن أنسود وينه أمات وتاجنا أنا هالكان إياه سود وينتي مدحوينه هنا هذا وحن شعبك إياه دقموين كإسكوجو إيمانه إن عن هذا الكي مدحوينه هنا وكده واجي إن عن سود وينتي سمعت عميشان كسمينه gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish oo ka hadlay goobta ayaa uga mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed sida ay shucuurtooda u muujiyeen iyo sida ay u soo dhaweeyeen hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. dadka magaalada Muqdisho iyo bulshada gobolka Banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga u jeediyay golaha baarlamaanka ayay maanta isugu soo baxeen dhowr goobood 4 goobood oo waaweyn oo ay ayagu go'aansadeen inay ku muujiyaan taageeradooda mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiina sida ay idin nooxisay ay idin dhaqaajisay dareenkiina u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyay golayaasha baarlamaanka mar haddii shacabka gobolka Banaadir uu dareenkiisa muujiyey madaxweynuhuna labada golo hortooda oo codsigiisii uga jeediyey golayaasha waxay u taalaa jawaabta arintaasi golayaasha baarlamaanka aqalka sare ee aqalka hoose arintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha damiir laawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada Muqdisho malaayiinta ku nool halkan iyo sida ay ugu heegan yihiin garab istaaga dawladooda
baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay iyaguba markhaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dowladnimada Soomaaliya dhidhiba u aasideeda waxaa iska cad oo insha Allah tacaala mar dhow aan rajaynayaa jawaabtii aad ku qanci lahaydeen inay ka timaado taasoo haddii aan la idmo matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare iyo maqaamka caasimaduba ay ku dheehan yihiin maqaamka caasimadda in la meeleeyo oo magaaladan caasimadda ay hesho maqaamka ay leeyihiin caasimadaha adduunka waa mid laga sugayay 20 sano dalka soo maray dawladihii jiray balse runtii ay si aad iyo aad u soo daahday waxaan aaminsanahay xilligaanu inay tahay xilligii ku habboonaa xilligii dawladda Soomaaliya ee hadda joogtaa ay ku magac yeelan lahayd inay meelayso sarayso matalaadii gobolka Banaadir iyo maqaamkii Muqdisho